waxaa jirta gabar wiil jeclaatay weliba jecel waali ah asaga xitaa wuu jeclaay habeen iyo maalinna way wada hadli jireen maalin maalmaha kamid ah gabadhii saaxiibadeeda ayaa casuumtay markay guriga saaxiibadeeda tagtay teleefanka ayaa dablaan uga damay waxay ka cabsatay saaxiibkeeda inuu u walwalo saaxiibadeeda ayayna ku dhahday teleefankaaga ii dhiib saaxiibey keygu wuu iga damay waxaan ka cabsanaa saaxiibkay inuu ii walwalo waan la hadlaa si ay niyadda ugu degto teleefanka saaxiibadeeda ayay qaadatay wayna wacday hello yaa waayane aniga waaya xabiibi nambarkan yaa kuu leh saaxiibtay ayaa iska leh talkayga ayaa dablaan iiga damay waan ogahay inaad ii walwalaysay sidaas darteed ayaan kaaga soo wacay wayba fiicnad inaad soo wacdo waan kuu walwalay waan ogahay macaankayga sidaas darteed ayaanba kuu soo wacay si ay niyadda kuugu degto haye macaanto naftaada ii ilaali waan ku jeclahay teleefanka ayay dimisay gabadhii ayadoo faraxsan waxay bilowday saaxiibteed inay uga sheekayso gacalyaheeda siduu u jecel yahay siduu u kolkooliyo iyo siduu daacad ugu yahay saaxiibtii way masiirtay habeenkii oo dhanna hadalka saaxiibadeeda ayaa ku soo noqnoqonayay waxay go'aansatay wiilka inay tijaabiso sawirkeeda ayay u dirtay kadibna cod ayay u duubtay waxayna dhahday iga raali noqo sawirkayga ayaan kugu soo qalday walaashii ayaa u waday cod kale ayay u duubtay oo ay ku dhahayso waan ku baryaa saaxiibtii ha u sheegin inaad sawirkayga kugu soo qalday wallaahi way iga xumaanay anina kaskuuguma soo dirin maya uma sheegayo saaxiibtaa ha ka walwalin midaas meesha ayay sheeke iyo isbarasho ku bilaabeen maalinba maalinta ka dambayso way isa sii jeclaanayeen wiilka wuxuu bilaabay inuu ka baxbaxsado gabadhii hore mana uusan la hadlaynin gabadhii way dareentay gacalyaheeda inuu isbedelay saaxiibtana ma aysan ogeen waxay jeclaysatay inay weydiiso waxa ku dhacay ii waran macaane haa aawe ereygii xabiibtii oo aad mar kasta i dhihi jirtay maxaa jiro waxna ma jiro keliya waxaan u jeedaa hadda inaysan ii suurtagalayn inaan ku guursado macaankaygii ilaahayaa ku dhaartay inta cimrigayga ka dhiman ayaan ku sugi karaa maya adiga waxaa tahay gabar fiican nin kasta ayaana kugu ducaysto allaha kaa farxiyo laakiin aniga cidaan adiga ahayn ma rabo aniga hadda jecel diyaaru maihi guurna diyaaru maihi hadda iyo mar dhow ma raba inaan xiriir kula sii wado allaha kula jiro teleefanka ayay dimisay ayadoo ooynayso bilooyin kadib waxay maqashay saaxiibadeeda arooskeeda mana aysan u soo sheegin arooskii ayay aaday markay gashay hoolka arooska waxay aragtay wax ay ka qaraacanto waxay aragtay gacalyaheeda oo gacanta ka haysto saaxiibteed faraantina u gelinayo gabadhii way naxday way soo baxday ayadoo ooynayso oohinta iyo naxdinta darteed xitaa ma aysan arkin waxa horteeda yaalo gaari ayaa dartaray meesha ayayna ku dhimatay talo ku socoto wiil kasto gabar markay kugu kalsoonaato ha burburin kalsoonideeda ha qiyaamin qof kugu kalsoonaaday qalbiga ma ahan alaab aad ku ciyaarayso